Maxaa khadraday? maxay qaldan Anaga karta dhuusada waraaq. maama dhusnikeeda dhuuso Okay, alla. Maxaa khadraday? maxay qaldan Anaga karta dhuusada waraaq. maama dhusnikeeda dhuuso. Haddaba dhuusada badan maxaa keena? Dhuusada badan waa wax iska dabiici ah oo u yimaada iyadoo aanan cudur jirin, laakiin waxa ay noqon kartaa mid xad ka baxa oo qofka u keeni kara walwal iyo yaxyax qaas ah marka uu la joogo bulsho ama dad badan. Ha yeeshee waxa ay ku kala duwan yihiin inta jeer ee dhuuso maalintii. Ma jirto tiro goon oo laga rabo qofku inuu dhuuso maalintii. Maxaa khadraday? maxay qaldan Anaga karta dhuusada waraaq. maama dhusnikeeda dhuuso Okay, alla. Maxaa khadraday? maxay qaldan Anaga karta dhuusada waraaq. maama dhusnikeeda dhuuso. Okay, alla. Maxaa keena dhuusada caadiga ah? Qofku marka uu dareemo calool majiir waxaa badanaa soo raaca hawo. Hawadaasi waxa ay ku aruurtaa caloosha iyo mindhicirada. Marka ay calooshu cuntada shiidayso waxa ay sii daysaa hawo. Hawadaasina waa mid uu u baahan yahay qofku. Maxaa khadraday? maxay qaldan Anaga karta dhuusada waraaq. maama dhusnikeeda dhuuso Okay, alla. Maxaa khadraday? maxay qaldan Anaga karta dhuusada waraaq. maama dhusnikeeda dhuuso. Okay, alla. Inta badan bulshada caalamku, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed, dhibaato weyn ayay u arkaan qofku markuu qof kale ku ag dhuuso. Waa ayna ku qoslaan. Ha yeeshee qof kasta oo inaga naga mid waa u baahan yahay inuu hawadaasi ay ka baxdo. Haddii ay ku xirantana waxa uu la kulmayaa dhibaatooyin badan. Barnaamijyo badan oo noocan ayaan idiin soo gudbin doonaa. Ha yeeshee muuqaalka share garee si saaxiibada kale aan ku xirnayn page-ka uu u gaaro. Aragtidaaduna muhiim ayay noo tahay. Qaybta dambe noogu reeb. Mahadsanid. Maxaa khadraday? maxay qaldan Anaga karta dhuusada waraaq. maama dhusnikeeda dhuuso Okay, alla. Maxaa khadraday? maxay qaldan Anaga karta dhuusada waraaq. maama dhusnikeeda dhuuso. Okay, alla.